in laga gudbo aan loo naga karin 4.5 taasina ay tahay burbur ummadda Soomaaliyeed dib loogu celaayo oo aan la aqbali karin in looga gudbo haddaan doorasho ayna dhici karin qof iyo codkiisa ay jeceshaa iyadu in loo gudbo nidaamka degmooyinka oo siyaasiyiin kala duwan ka soo qabtay dawladii hore aqoon-yahano duubab dhaqameed waxgal u ah bulshada Soomaaliyeed oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed aan dib loogu celin doonin habka awood qaybsiga 4.5 ama 4.5ka waxaana ay soo jeediyeen dadkaasi oo matalaya Soomaali badan in doorashada sanadka dambe ee ka dhici doonto Soomaaliya lagu saleeyo nidaamka deegaameysiga oo dadka laga soo doorto deegaanada waa kan ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Professor Ali Maxamed Geedi siyaasiga Salaad Cali Jaale iyo duubab dhaqameed ka mid ah duubabka dhaqanka Soomaaliyeed oo aragtidooda ku cabiraya in dadka Soomaaliyeed aan marnaba dib loogu celin nidaamka awood qaybsiga 4.5 ama 4.5 isla markaana go'aankooda uu yahay in doorashada Soomaaliya ka dhici karta sanadka dambe marka la gaaro in lagu saleeyo hab deegaameysi oo dadka deegaanka ay wax ku soo doortaan ummaddu waxay diyaar u tahay inay deegaan lagu saleeyo xildhibaanada iyo siyaasadda soo socota dastuurkay ku qoran tahay in deegaano iyo xisbiyo looga gudbiyo qabiil ummadda Soomaaliyeed maanta Soomaaliya uma baahna haddii nidaamka qabaliga laga bixi waayo waxaa halis loogu jiraa in dagaalo sokeeye lagu noqdo dagaalo sokeeye iyo ummaddan dhibaato dambe inay noqotana cid ku talin karta ama laga yeelayo ma jiro in laga gudbo aan loo naga karin 4.5 taasina ay tahay burbur ummadda Soomaaliyeed dib loogu celaayo oo aan la aqbali karin in looga gudbo haddaan doorasho ayna dhici karin qof iyo codkiisa ay jeceshaa iyadu in loo gudbo nidaamka degmooyinka oo deegaan wax lagu dhiso afartiyo barkii waxay noqotay waxaan lagu noolaa karin ay noqotay waxaa la warsaday gabdhihii waa qadsan yihiin waxaa la warsaday dadka tirada badan oo xoogga badan oo degmooyinka doogaa la warsaday waa qadsan yahay yaa wax la siiyey rag allow wixii wax la siiyey waa la arki doonaa waxaana la leeyahay laakiin goorba dadka tirada ee raaxa loo roonaada hadday leeyihiin haddaanay soo bixi doontaa haddii ilaahay yidhaah bal xagga barataya xaggana hala baro warfoon bay waa la arkay ma dadka dhigay degmooyinka balaan ahaantayada waxaa malayni xal haq maahina waa xal hadda ka horaa layidhi war haddii haqa laga tago xaggee horta xal lagu arkay xalbaba imaan kari haqa yaaba laga tegay waxaan leenahay kelimadaasu kelimad saxa ma aha haqaa laga tegaa asaa xal la aadaa haq maaha waxaan leenahay kelimadaas waa lagu qaldamay waxay ila tahay waxaa la soo gaaray xilligii laga dhammaanahay wakhtigaas ayaa la soo gaaray waxaan raacayna dastuurka Soomaaliya u yaalla oo maaragtay dowladda aan ku beelgaanahay ayaa dalka u dhisay marka dastuurkii lagu soo dhisay ayaan raacaynaa marka dastuurkii ayaa la raacay ciddi tidhaahdana waxay ka soo horjeedaa qarannimada Soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee hadalkani ka soo yeeray qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee maanta kulanka ku yeeshay magaalada Muqdisho waxa uu ku soo beegmayaa xilli magaalada Muqdisho ay ka furan tahay madasha wada tashiga taasi oo la isku mari la'yahay in Soomaaliya dib loogu celiyo habka awood qaybsiga 4.5 ama hab deegaameysi dadka lagu soo doorto laakiin iminka waxaa muuqanaya kala aragti duwanaansho dadka madasha shirka wada tashiga u fadhiya ay ku kala aragti duwan yihiin ereygaasi maanta ay qaateen dad badan oo ka mid ah Soomaalida oo go'aankaasi ajiibay